السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين وناكسن صاحبada sida tooska nagala xiriira barteena galka media isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walba oo dunida daafaheeda ka joogtaan. waan rajaynayaa inaad caafimaad qab mar kale igu daawanayso. waxaan jecelnahay inaan caawa halkan idin kula wadaagno Midowga Afrika ee Soomaaliya oo go'aan degdeg ah ka qaatay ciidamada Kenya. maxaad kala socotaa in ciidamada Kenya ay ka baxayaan Soomaaliya? waa maxay sababta xilligan go'aankaasi loo soo rogay? maxaad kala socotaa lacagta ay luusantay dawladda Kenya ee Soomaaliya loogu talagalay? tallaabada ay qaadeen Midowga Afrika dawladda Soomaaliya siday u aragtaa? xogtii ugu dambeysay ayaan caawa doonaynaa ka bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya iyo waqtiga la qorsheeyay inay ka baxaan inaynu halkan idin kula wadaagno. balse muuqaalka noo sheergareeya haddii aad jeceshahay in ciidamadeena qaranka ee Soomaaliya guud ahaanba ay la wareegaan qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan waan rajaynayaa in aad runtii si aad ah uga jawaabteen codsigeennii ahaa in aynu xogaha halkan idinkula wadaagno si weyn aad uga jawaabtaan. mar walbana waxaan idin rajaynaynaa caafimaad qab iyo cimri dheer iyo cibaado suuban. sida boorka ka muuqata Midowga Afrika oo qaaday laba tallaabo oo ka dhan ah dawladda Kenya. waxyaabaha xilligan Kenya lagu eedeeyay waxaa qayb ka ahi duqeynta ay ka geysato qaybo badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. baaritaan culus oo ay sameeyeen Midowga Afrika oo dawladda Kenya lagu helay xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ahi dhanka bini'aadanimada ee Soomaaliya. arrimaha Midowga Afrika khilaafka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku cerisay ku-xigeenkii Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Molongo. baaritaan marka la sameeyay waxa ay ka dambeysay arrin ay dawladda Kenya markaasi dhalisay. Midowga Afrika oo xilligan dawladda Soomaaliya ku raali gelinaya in ay ciidamada Kenya ka saaraan Soomaaliya. sidoo kale waxaa la soo wariyay in ciidamo loogu talagalay kuwa Kenya ee nabad ilaalinta Soomaaliya u jooga oo lacag ahi in la luusnaday oo madaxda dalka Kenya lagu eedeeyay sidaasina ay markaa xilligan guud ahaanba dhinacyadu ay markaa go'aanka u qaateen Soomaaliyana inay ciidamadaasi ka saaraan. haddaba su'aalo badan ayaa ka dhashay oo dhinka iyo weliba dawladda Kenya ahi ciidamada laga saarayo Soomaaliya. go'aanada Midowga Afrika oo noqonaya mid markaasi taariikhi ahi. madaxda Soomaaliyeed oo si weyn u soo dhaweeyay tallaabada ay qaaday Midowga Afrika. Midowga Afrika oo xilligan u muuqda kuwa markaa dawladda Soomaaliya mar kale doonaya inay ku raali geliyaan tallaabada Simon Molongo xilligan dalka looga ceriyay. arrimaha ugu waaweyn ee xilligan dhinacyada markaasi la soo wariyay waxaa qayb ka ahi in guud ahaanba qaybta ugu dambeysa dhinacyada ay xilligan shaaciyeen in guud ahaanba la doonayo in tallaabooyinkaasi ay noqdaan kuwa wax ku ool ahi marba marka kasii dambeyso ay noqon karto tallaabo horey loo qaaday. waxaa aad u muuqata in dawladda Soomaaliya lagu baratamayo wax walba oo go'aan la qaadanayo in xilligan lagala tashto. muuqaalka sheelgaray sidoo kale haddii aad haatan nagu soo birtay marka hore waxaan jecelnahay in aad rukumataan barteena Facebook ee galka media. weli waxaa muuqata in sida aan rabnay aadan ugu falcelinin oo ah qaybtii followinka weli waad ku dhagantihiin. ma garanayo shuruudahaas iyo qaabka aad markaa ugu hortaagantihiin. dhammaantiinba waan rajaynayaa inaad markaa caafimaad qabtaan. muuqaalka noo sheergaray haddii aad haatan nagu soo birtay waxaan ka hadlaynaa waa wax Soomaaliya dan ugu jirto. doonaya Soomaaliya in ay qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda midda dhuleed ay markaa soo celiyaan. waxaan jecelnahay in maalmaha soo socdana runtii warbixino kale oo tan ka sii farxad badan oo xogaheeda qayb oo markaa qabyo ay inoo yihiin inaynu halkan idinkula wadaagi doono. haddaba su-aasha ahi aan jecelnahay inaan caawa idinkaga tagno oo aan doonayno in fikirkiina iyo waxa maankiina ka guuxaya aan ku ogaano aan doonayno waxa ay tahay tallaabada ay qaadeen Midowga Afrika sideed u aragtaan ee ciidamada Kenya looga saarayo Soomaaliya. maxay xilligan kula tahay in Kenya ay uga falcelin doonto tallaabadaasi? qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag. warbixintana u sii sheergalay saaxiibadaada kale. mar walbana waxaan u taagannahay dib u dhiska dalkeena hooyo
sidoo kale waan rajaynayaa in aad share garaynaysaan muuqaalkan saameyntiisana aan caawa jeclahay inaad u yeeshaan tan iyo kulankayga dambe nabadgelyo